wanaagsan idilhaan timba kuna soo dhawaada barnaamijka maaweelada dhallaanka oo ka daawataan marka soo booqataan channelkan ku leenahay YouTube ee dhallaan koriye toddobaadba sheeko cusub ayaa ku maqashaan sheekada toddobaadkan caruuray waxay qaybteedii shanaad tahay taxanaha sheekooyinkeenii aan wadi jirnay ee boqorada caanka ee Rayaan oo boqorada ka tirsan boqortooyada badda gunteeda ku nool sheekadeenii tan ka horeysayna amba taxanaha qaybtii ugu dambeysay oo dhowr toddobaad ka hor aan soo gelinina waxay noo joogtay iyada oo boqorada Rayaan iyo boqorka isu dhaxeen ee boqor Edward ay samaynayaan safar ay badweynta Hindiya ku marayaan kadib markii ay ka guuleysteen dagaalada iyo colaadihii ay badda gunteeda ka abaabuli jirtay qoomiyada Vega si aad moodaysay in dhibaatooyinka qoomiyadu ay intaa ku ekaayeen wali fari kama qodnaa maalinba maalinta ka dambaysa ay Vega ku hawlaanaysaa sidii ay hadafkeeda uga midho dhalin lahayd maalin maalmaha ka midana ay ula wareegi lahayd boqortooyada uu ka taliyo boqorka aabaha oo ah boqorada Rayaan ee boqor Poseidon qaybta shanaad ee sheekooyinka taxanaha boqorada Rayaanna ku soo dhawaada boqorka iyo boqoradu waxay ku dhex jiraan safarkooda ay badweynta Hindiya ku marayaan iyagoo saaran markab weyn oo ay ku dalxiisayaan waxay marayaan deegaano iyo xeebo qurux badan meelaha qaarkoodna waxay manayaan jasiirado googo'an oo ay ku yaalaan dhir qurux badan oo cagaaran waana safar xiiso badan oo kan ugu muhiimsan ee ay galaan tan iyo intii ay nolosha ku midoobeen waxa aad u cajabiyay quruxda kala gadisan ee badweynta dusheeda jasiiradaha ay marayeenna waxay ka soo gureen noocyo fara badan oo khudaarta ka mid ah cananas xabxab iyo waliba tufaax iyo noocyo kale inaan soo koobi karin oo tiro badan waxaana ay khudradan doonayaan inay u qaybshaan markay ku soo laabtaan qasriga boqortooyada ee deegaankooda siday ugu qaybshaan dadka ay kaga tageen halkaas ee dariska la'aa maalmaha dhan ayaa soconayay waxaana ahayd nolol qurux badan oo ay mar walba marka ka dambaysa la sii macaanaanaysay balse maalmo kooban kadib waxay dareemeen waxaysan harawaal ka jirin boqorka ayaa yidhi malaha waxayaa khaldan muddo 5 cisho oo badda ku jirnay hal kalluuna maynan arag maya noolihii kale ee badda ku noolaa xaggee ayay qabteen maxaa khaldan boqorada laftigeeduna su'aashaas oo kale ayay isweydiinaysaa kadibna waxay u yeedhay saaxiibkeeda Billy oo ahaa noole badda gunteeda ku nool oo mararka qaar uga soo warrami jiray dhacdooyinka ka dhacaya badda gunteeda balse isaguna xataa markii uu u yeedhay ma maqal boqoradu waxay tiri badda gunteeda ayaan aadayaa isaan u soo hubiyo wixii dhacay haddii tan iyo gabaldhacaadi weydana ugu waxbaa dhacaye badda ayay isku tuurtay oo madax ugu booday cabbar markii ay sii dabaalaysana lugaheeda ayaa isku bedelay dub ay ku dabaalan karto badda gunteeda ayay aaday balse waxba ma arkin muddo ayay sii socotay waxaana la yaabtay sida badda gunteeda hoose aysan u joogin dhammaan noolihii ku noolaa way badduna u tahay tucud la'a mana ahayn dhacda caadiya oo way la cajabtay waxay aragtay waxay isweydiinaysaa waxa ku dhacay noolihii halkan ku noolaa marba marka ka dambaysa ayay u yeedhaysaa qaar ka mid ah saaxiibadeeda balse cidina maqli mayso muddo ayay sii socotay halkan waxa ku noolaan jiray tiro badan oo saaxiibadeeda ah iyo waliba dad ka mid ah dadka uu boqorka u yahay aabaheed ee ka tirsan boqortooyada boqor Poseidon uu maamulo marba marka ka dambaysa ayay u sii dhawaanaysay gunta hoose ee badda balse cidna ma helin mar dambe ayay goob cidla ugu timi alaalahay badda gunteeda taalla waana halka kaliya ka heli karto macluumaad ku saabsan bal waxa ku dhacay noolihii badda gunteeda ku noolaa way soo qaaday si u dhageysato waxay alaalaxaydu ku oranayso waxayna weydiisay oo tiri maxaa dhacay alaalaxayda oo cabsi iyo argagax ka muuqda ayaa tiri aan ku bilaabay waxay ahayd maalmo qurux badan noloshayadu waxay u socotay sidii caadiga ahayd noolaha badda guntooda ku noolna waxay u damaashaadiyeen sidoodii hore qaybo dhan ayay u soconaysay waxaana ahayd maalmo damaashaad badan sidaas oo kalena cadowga ayaa hogaamiso boqorada qoomiyada Vega iyaguna kama tanaasulin dhagarihii ay boqortooyada la maaganaayeen
dhagahayga ayaan ku maqlayay markii maskeeda labada madaxle iyo Vega ay ku tashanayeen shirqool ay u dhigayaan boqortooyada boqor Poseidon iyo sidii ay maalinun qomayadu ula wareegi lahayd qasriga aabaha waxayna adeegsanaysaa 40 nibriye waaweyn ee ah burcad ay ku adeegsato balse markii ayaan arkay shabagyo iyo waxaan caadi ahayn oo badda dusheeda ka soo dhacaya markii aan waxaas arkayna anigu waan cabsaday kadibna waan cararay markaas waxaan isku qariyay meel ciid ah balse tan iyo markaa wixii ka dambeeyay noolihii badda ku noolaa oo dhan waa la qabtay meel joogaana hadda kuma sheegi karo ay alalaxayda ku tiri intii halkeeda iska dhigtay alalaxayda ayay markiiba carartay balse ay u raadiso waxa dhacay muddo ayay socotay iyadoo baadi goob ku jirta oo raadinaysa halkay ku dambeeyeen noolihii kale ee badda gunteeda ku noolaa balse si lama filaanaya ula kulantay shabag weyn oo dhammaantood ku xayiran yihiin waxa ku jira Delphi oo ah saaxiibkeedii badda gunta uga soo warrami jiray wuxuu ku yiri boqorad Rayaan nacaawi shabagan ayaan ku jirnaa anigoo kaliya maaha laakiin noolihii badda gunteeda ku noolaa oo dhan ayaa halkan tan ku xayiran aad ayay u argagaxday waana yaabtay balse boqor Edwin oo isaguna ka warsugayay bal inay soo laabato boqoradu ayaa hadda arkay inaysan soo soconin wuxuuna go'aansaday isaga laftiisu inuu badda isku tuuro maadaama ay la dhaafay waqtiga ay ballameen wuxuu liqay dareere ay siisay oo kula talisay inuu liqo ka hor inta uusan badda gelin markuu biyaha guntooda isku tuurana markiliya ayuu xataa isagu isku bedelay noolada baalan kara sagxadda badda ayuu aaday balse uu uga warkeeno waxa ku dhacay boqoradii iyo waliba noolihii kale ee badda gunteeda ku noolaa oo soo socday wuxuu arkay boqoradii oo ku hafanaysa badbaadinta qaybo kala duwan oo kamid ah badda balse si la yaab leh ay markii uu la kulantay qomayada Vega iyo kooxdii maafiyada hay'adii adeegsan jirtay oo iyagu xataa laftigoodu halka ku xayiran waxay ku tiri Vega ma xayiran taayadna waxay ku tiri maxaa xayiraadeeda ka galay bay halkan ku keenay waxay ku tiri inaan adiga ku badbaadsha ayaan u joogaa qomayadu tu arxan daran bay hayday waxay ku tiri aniga miyaad doonaysaa inaad badbaadiso iska bax oo iska tag anigu adiga caawimaad ka dooni maayo waanad ogtahay inaan ahay boqorada dhabta ee qasriga boqortooyada aabaha xaq u yeelatay waxay ku tiri iska daa Vega waxaad hadda ka hadlayso dhibaato ayaa ku haysa kamana bixi kartid ma ku caawiya maaniga ayaad leedahay intii ugu jawaabtay ayay isku dayday inay ka baxdo shabagii waxay dhaqaajisay lugaheedii faraha badnaa ee badda ku jiray oo xarkaha shabagu isku maray kulba dhan ayay isku ruxday balse iska masaari karto maski labada madax ay u adeegsan jirtay ay ku tiri hoos u deg oo caawi lugahayga mid kamid ah shabaga iga saar waxba uu ka tiri kari waayay markaas ay ku tiri naxas iyo labadaada madaxba adeegso oo caawi balse marba marka ka dambaysa ay xaaladdu ka sii daraysay oo marna ma awoodin qomayaduna waxay diidaysay inay boqoradu badbaadiso balse si lama filaana ayaa shabag saddexaad oo kale aysan ka warqabin badda dusheeda uga soo dhacay waxaana markan xataa la qafaashay boqoradii aad ayay u argagaxday qomayadiina intay ku qosashay ayay ku tiri hadda waa la arki doonaa keena halkan ka soo horbaxa adigu isku filow intaad lahayd aniga ayaad badbaadinaysaa aad ayay u murugootay boqorada Rayaan oo hadda ay u cadaatay inay jiraan maafiyo waaweyn oo kalluumaysata ah kuwaasoo si aan kala sooc lahayn u naafaynaya noolaha badda gunteeda ku nool balse boqor Edwin ayaa markiiba badda gunteeda yimi boqoraduna aad ayay ugu faraxday wuxuuna markiiba bilaabay inuu ka gooyo shabaga ay ku xayirnayd balse waxay u sheegtay in noolihii badda ku jiray oo dhan dhammaantood ay xayiran yihiin waxayna yimaadeen qaybtan oo ay ku jiraan qaybo badan oo saaxiibadeeda kamid ah boqorada Rayaan kor ayay u dabaalatay sidii kalluumaysatada burca dawla hadasho ay u sheegto inay ka daayaan dhibaatada ay ku hayaan ee aan kala sooc lahayn una geysanayaan noolaha badda gunteeda ku nool oo dhan waxay hayeen koox burcada oo aan dan ka lahayn waxyeeleynta ay u geysanayaan noolaha badda gunteeda ku nool Rayaan intiisa soo taagtay ayay kor ugu qaylisay waxay ku tiri waxa sameeynaysan wax xaqdarro waxa gunta hoose ee badda xayirateen kumanaan kun oo noola oo noocyo kala duwan leh joojiye shabagyada aad badooyinta ku tuureysaan oo halkan ka taga balse intii mid afaraad tuureen ayay waliba ku qosleen iyagoo ku dheeldheelaya
boqoraduna markan aad ayay u xanaaqday balse waxay adeegsatay awoodeedii mucjisada haa ee adeegsan jirtay mawjado waaweyn oo biyaha ka mid ayaa kor mar kaliya u dalacay waxayna ku qaylisay burcadii iyaguna waa argagaxeen oo cabsi ayaa qabsatay dhammaantood waxay la yaabeen waxay indhahoodu arkayaan way argagaxeen dub ayay isugu yaaceen iyagoo aysan weligood aragtan oo kale mawjadaha biyaha ee baddu soo tuurayaan waxay qarqoomiyeen markabkii ay burcadu wadatay oo marba marka ka dambeysay u sii riixayeen meelo ka fog halkii ay joogeen wuxuuna jiidanayaa shabagyadii iyo xadhkii ay badda ku tuureen iyaga oo cabsanaya naftooduna qirqir ku jirto ay markabkoodii ka kaxeeyeen goobtii uu taagnaa boqoraduna waxa uu gooyay shabagyadii iyo xadhkii ay ku xireen ee badda guntooda ku tuureen kuna hayeen kalluunka aan kala sooc lahayn dhammaan noolihii ay qafaasheen oo dhan hadda waxay heleen xorriyadoodii xataa kuwa xornimadooda helay waxa ku jira qumayada Vega maska labada madax leh iyaga waan xataa hal eri oo mahadnaqa u jeedin boqorada ayay isaga dhaqaaqeen maska labada madax leh ayaa ku yiri Vega mawaalan tahay miyaanadu mahadnaqayn boqoradayna badbaadisay waxay ku tidhi iska aamus doqon iyo labada madax leh maxaad ku hadlaysaa halkii ayaan ugu mahadnaqi karnaa waxaba aabaheed haystaa kursiga iyo boqortooyada aan ku taamayo weligay dhagarteeda ma joojin doono tanna lama saaxiibi doono inta aan ka qabsanayo qasriga boqortooyada ee boqor Poseidon boqorada tan rayaanna aan nolosheeda ka takhalusayo boqorka iyo boqoraduna hadda waxay ku faraxsan yihiin badbaadada ay u sameeyeen noolaha badda gunteeda ku noolaa xayawaankii oo dhan intay u yimaadeen ayay u mahadnaqeen waxayna ku yiraahdeen noloshayada ayaa badbaadisay boqorka iyo boqoraduna hadda waxay ku soo laabteen markabkooda weyn ee badweynta Hindiya dul saaran noolaha badda gunteeda ku noolan iyagoo damaashaadaya ay hor socdaan iyaguna waxay ku jiraan dalxiiska ay badda guudkeeda ku marayaan safarkooda ayayna sii wataan iyagoo kolba hareer maraya jasiirado qurux badan noloshoodana ku raaxaysanaya waxayna tan iyo hadda ku nool yihiin caruuray haddaysan dhimanin nolol raaxa leh boqorada rayaan iyo boqoraduna waxay markale ka guuleysteen dhagaraha ay ka abaabuleen kooxda budhacad ee u kalluumaysato sida arxan darrada ee aan kala sooc lahayn sheekada tanna waxaanu ka baranaynaa daryeelka ay nooga baahan yihiin noolaha badda gunteeda ku nool oo markii aan si aan kala sooc lahayn loo ugaarsado aakhirka ku dambayn kara kuwa dabargo'a noloshooduna ay dhammaato kalluumaysigu waa wax wanaagsan balse waxa waajib inaga saaran yahay inaynu taxadar muujino si uusan u dabargo'in noolaha ay nolosheenu ku tiirsan tahay ee badda gunteeda ku nool sheekada boqorada rayaan qumayada Vega iyo boqor Edward iyo waliba boqortooyada badda gunteeda ka talisay oo boqorka u yahay boqor Poseidon ayaa intaa ku dhan toddobaadka soo socdana qaybta lixaad ee sheekadan ayay maqlaysaan taas oo ka dhigaysa taxanihii lixaad ee sheekooyinka boqorada rayaan tan iyo kulantidiina dambe intaynu ku kulmayno sheekatan oo kala waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo waqtigu ha idin mucnaado